laakiin waxaan inii sheegayaa kuwiisa soo sharaxay 2009kii iyo kuwa hadda soo sharaxay isku taya maaha intooda badan maalin dhaweyd nin baan ka dhagaystay idaacad xayeysiis u samaynaya oo been sheegaya waxa ahaa ninkaas nimaan anigu ugu wacnaa inuu xafiis dawladnimo oo public ah oo xafiiska Soomaaliya ugu sareeyay kan ku xiga anigu aan ugu wacnaa in la geeyo shaqada dawladeed warigi hal sano qabto intii aan wada joognay intuu gacan la siin lahaa lugooyo mooyee waxba nooma tarin wuxuu sheegtay been inuu isagu Puntland burcadbadeeda ka sifeeyay waryaa burcadbadeeda Puntland ka sifeeyay ma Cabdiweli mise Cabdiraxmaan adeerkay Cabdiraxmaan shalay waa u khudbeeyay hadalkii uu yidhi adeerkay anigu ka jawaabi mayo laakiin baran iyo Puntland baa ka jawaabi doonta 8 January 2014 walaalayaal waxa su'aasha aan rabnay inaan isweydiino waxa weeye xaaladda ay ku sugan tahay Puntland maanta oo ah kala furfurasho dadkii ehelka ah ee Puntland wada dhistay dhulkii Puntland oo kala maqan dadkii shalay isjeclaa maanta oo qulubtooda aysan isu fayoobayn marka ku xigana waxaan ku soo dhaweyn doonaa madaxweynaha xilka hore waayay Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole soo dhaweyn ilaa hadda sidii aan ku soo weynay sida ay ku dhamaatay maanta natiijadu walaalkii Cabdiweli aad iyo aad baan ugu taaniyeenayaa guusha uu ku guuleystay maanta waxaan rajaynayaa inuu dalka ku hogaamiyo sidii aan ku soo wadnay iyadoo si ka fiican isagoo eegaya maslaxadda dadka iyo dalka reer Puntland marka koowaad marka labaadna tan Soomaaliyeed oo dhan shacabkana ilaalinaya midnimadiisa cadowgana la diriraya intii aan anaba la diriri jiray iyo wixii kale oo soo bixi karaba waxaan ka codsanayaa intii la soo shaqaysay oo wali xafiisyada joogta inay si wanaagsan ula shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan si dalku hore ugu maro waxayna ka dhaxayaa waa dalka inuu sii jiro iyo nidaamka aynu doorannay dadku way isbedelayaa hadba qof baa imaanaya Cabdiweli isagana waa la bedeli doonaa cid kale imaan doonta haddii Ilaahay idmo sidaasay ku soconaysaa laakiin waxa haraya waa dadka iyo dalka iyo nidaamkeena iyo waxaynu doonay waxaan ku soo dhaweynayaa marka hore madaxweynaha xilka ku guuleystay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore xildhibaanada sharafta badan ninka sirta ka leexay ninka ay ugu aaminay xilka 15 sano soo socota ee dawladda Puntland intii codaysay intan iyo codaynba waa waxa weeye waa xildhibaanada sharafta badnaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka ee ku qabtay kuna dadaalay in doorashadu u dhacdo si xor ah oo xalaal ah waxaan sidoo kale ugu mahadnaqayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ee 5 sano ee la soo dhaafay ku soo hogaamiyay dowladda Puntland aad iyo aad ugu mahadnaqayaa leadershipkiisa iyo hogaamintiisa wuxuuna hadda ka dambeeya noqonayaa oday Puntland ayuu noo ahaanaya insha Allah